والحمد لله dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan filayaa inaad daawanayseen wixii maanta iyo xalay magaalada Muqdisho ka dhacay inaad daawanayseen weerarka qaawan ee kaligitaliska Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hayo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladnimada Soomaaliyeed xurriyadda Soomaaliyeed inuu ku hayo inaad daawanayseen baan u maleynayaa runtii waxaan isleeyahay Farmaajo xayndaabkii dawladnimada wuu ka gudbay maxaa yeelay xayndaabka dawladnimadu waa sharci xayndaabka dawladnimadu waa dastuur xayndaabka dawladnimadu waa ixtiraam iyo isqadarin iyo ismaqal iyo wada hadal iyo wada xaajood haddii uu damcay inuu qori caaradii dadka iyo dalka uu ugu taliyo waxaan filayaa inaan qori caaradii dalka iyo dalka loogu talin karin dunida tusaalooyin badan dad isku dayay inay qori caaradii ku taliyaan masiirkooda waa laga warqabaa masiirkooda meeshay mareen aad iyo aad looga warqabaa shacabka Soomaaliyeed xabadaha Farmaajo uu haysto waa ka tiri badan yihiin hadduu isku dayo dhammaantood inuu xabadihiisa ku laayo waxaa la hubaa shacabka ka soo hari doona xabadaha shacabka Soomaaliyeed dad xabad loogu goodin karo ma aha dadka Muqdisho dad xabad loogu goodin karo ma aha dad lagu cabsi gelin karo ma aha warlooray ka soo badbaadeen iyo hogaamiye kooxeedyo argagixisay ka soo badbaadeen Ethiopiaanay ka soo badbaadeen cid kastay ka soo badbaadeen ayaga haray waxaan rabnaa Farmaajo inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed ayaga hari doona adiguna waa tagi doontaa waliba wada xun oo aad iyo aad u xun ayaad ku tagi doontaa awal waxaan dhihi jirnay madaxweyne Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu leeyahay haddii uu xilka ka dago sharaf inuu madaxweynihii hore ahaa iyo xildhibaan qaran inuu ahaa hadda sharaftaas xataa ma heli doono sharaftii madaxweyne Soomaaliyeed horena ma heli doono sharaftii xildhibaan qaran oo abadi ahna ma heli doono wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi wuxuu ku dambeyn doonaa meel xun oo fool xun oo shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay shalay ninkii ra'iisul wasaaraha ka dhigo madaxweynihiisii ahaa labadii madaxweyne ee asaga garbaha qabtay ee taageeray shacabkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed sida dimuqraadiga ah magaalada Muqdisho ugu soo baxay inuu maanta xabad ugu bedelo ayaan darro aad iyo aad u weyn waay Farmaajo waxaa la doortay 8 February hotelkan Jazeero aan joogaan anigu waxaan kula kulmay 9 February annagoo madaxweynayaashii dawlad goboleedyada xilligaa jirnay ah ayaan hotelkan kula kulan ila taliyuuna yiri waxyaabahan kula taliyay qodob kamid waxaa kamid ahaa waxaan ku iri madaxweynuhu shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida ay xalay ku soo dhaweeyeen waad ogeyd waa arkiis gaar ahaan dadka Muqdisho joogahay siday ku soo dhaweeyeen waa arkiis mustawahaas lagu soo dhaweeyay iyo heerkaas lagu soo dhaweeyay hoos ha uga dhicin maalintii ayada ah taladii aan siiyay iyo maanta meesha uu joogahay Farmaajo waa arkaysaan dadkii xaq sida ogeyd u soo dhaweeyay oo ku faraxsanaa in doorashadiisa ku faraxsanaa hoggaankiisa iyo hoggaaminimadiisa ayuu maanta wuxuu ugu bedelo abaal uga dhigay inuu xabad iyo dil ayuu abaal uga dhigay waxaan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya Farmaajo si xun buu u soo galay meel xunna wuu ka soo galay siyaasina ma aha hoggaamiyana ma aha muwaadinna ma aha waa nin dawladnimada iyo siyaasadda si qaldan u fahamsan xoog iyo caburin iyo dictatornimo u fahamsan waa insha Allah ta'ala siyaasaddan wuu ka bixi doonaa talada dalka iyo hoggaanka dalkana wuu ka bixi doonaa annagana saacadan laga bilaabo waxaan sheegaynaa doorashana wada hadal kala gali mayno lana tartami mayno asna tartami maayo nin dambiilo ah in la soo xiro oo maxkamad la soo taago ay u dhiman tahay oo kale away beesha caalamka waxaan rabnaa inaan u sheegno ayaan darro waaye caawinaadii taangiyadii hubkii rasaastii ayaga ay bixiyeen in shacabka Soomaaliyeed lagu laayo waa ayaan darro ilaalinta Amazon ee ilaalinayso ninka dictatorka ayaan darro waay shuruucda adduunka ka soo horjeedaa sharciyada dunida oo dhan ka soo horjeedaa dictator marna sax ma aha in dadkiisa asagoo leynayo la ilaaliyo sax ma aha waa arkayseen dad nabdoon oo mudaharaadaya oo hogaamiyaashoodii iyo shacabkoodii oo dhan wada socda inay xalay ilaa maanta ay maaragtay xabadeynayeen oo leynayeen waa arkayseen
sidaas inaad ku dhowrataan waxaan u aragnaa inaad raalli uga tihiin aan u aragnaa beesha caalamka waxaan u aragnaa farmaajo iyo waxa uu samaynaya inay raalli ka yihiin aan u aragnaa shacabka Soomaaliyeed sidaas bay u arkaan haddii kale falkaas fal ka duwan ayaan u baahanaa dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ninkan dhiigyacabka ah oo shacabka Soomaaliyeed sidaas aragteen u leynaya nin tala Soomaaliyeed inaad la soo fariisataan oo u timaadaan ay tahay sax ma aha ha u imaanina ha la fariisanina waana inaad soo saartaan waxa uu sameynaya iyo waxa ay tahay inay mid xindaabka dowladnimada ka baxsan inay tahay waa inaad soo saartaan haddii kale oo aad la timaadaan oo la fariisataan waxaan u aragnaa idinkana dambiga inaad la wadaagtaan oo la mid tihiin aan u aragnaa